السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحابتا كحيران بيجكيغا iyo channelkayga qisa iyo qiiro ku soo dhawaada barnaamij aad u xiiso badan oo ah maanta aan wada qisa aad u qurux badan oo ka hadlaysa nolosha bini'aadamka qisadani waxay leedahay mid ka mid ah jaamacadaha wadanka Colombia ayaa ardaydii dhigan jiray arday ka mid ah waxa uu soo galay lecture-kii maadadii xisaabta macalinkeedii baa u soo galay ka bacdina ardayga si degdeg ah ayuu fasalka ku soo galay hawlkii lagu dhiganayay ayuu si degdeg ah ku soo galay si degdegana wuxuu u fariistay kursigii uu ka fariisan jiray fasalka dabadeed ardaygu caajis baahiyay turqasho ayuu galay wuu seexday ugu dambeyntiina wuxuu ku toosay alooska ardayda markay tagayeen wuxuuna fiirshay sabuuradii wuxuuna ku arkay laba su'aalood oo ku qoran macallinkii xisaabtana uu ku qoray si degdeg ah ayuu u qortay wuxuuna isaga baxay hawlkii markuu gurigiisii tagayna wuxuu bilaabay inuu ka fakaro xalinta labada weydiimood labada su'aalood aad bay u adkaayeen wuxuu tagay library jaamacadda dabadeed wuxuu soo qaatay wax walba oo laga maarmaan u ahaa xalka su'aalaha 4 maalmood kadib wuxuu xal u helay su'aashii koowaad asigoo waliba u caraysan diktoorkii u diray su'aashan aadka u adag badan markii la gaaray lecture-kii maadadii xisaabta ee seetamaankii asbuuci labaad wuxuu ardaygii la yaabay inuusan diktoorku qofna weydiin shaqadii markaas ayuu intuu u tagay wuxuu ku yiri diktoorow waxaan xalinta su'aasha koowaad ku bixiyay muddo 4 maalmood ah 4 warqadoodna waan ku soo qoray diktoorku wuu yaabay ardaygiina wuxuu ku yiri laakiinse wax shaqo ah inima dirin labadii su'aalood ee aan sabuuradda ku qoray seetamaankii tagayna waxay ka mid ahaayeen tusaalooyin aan ardayda u soo dhiriyay oo ah su'aalo cilmigu xalin iyo jawaab u waayay qanacsanaanta xun waa dhibaato ee ha isku dhiibin qanacsanaantaada xun ha isku dhiibin ilaali naftaada ilaa iyo maanta su'aashaas waxay ku qoran tahay 4teedii warqadood waxaana lagu soo bandhigaa isla jaamacaddii qofka bini'aadamka ah wuxuusan xal u heli karin ma jiraan waa haddii uu aaminsan yahay inuu heli karo oo kaliya waxaana jirin dhib ilaahay abuuray haddayse jirto waxay leedahay xalkeeda macnaha wax walba waxay leeyihiin wax taban iyo wax togan macnaha lab iyo dhadig ama laba waxyaalood iska soo jeeda nolosha dhan tabtaas ku dhisantahay nolol iyo geeri waad aragtay marka wadanka Colombia wuxuu ku yaalaa cirifka waqooyi ee koonfurta America asxaabay sheekadan waa sheeko aad u xiiso badan oo sheeko waxa weeye aad uga heli doontaan insha Allah waxaan idin soo duubay meeshii aan joogay si aad ugu qanacdaan muuqaalkan quruxda badan iyo sheekadan waxa weeye xiisaha iyo murtida xambaarsan ee idin soo gudbinaya walaalkiin dhowr sano channelkan waxaan ka rajaynayaa inaa waxa weeye subscribe-ta iyo adeeg ah ku yaacsan meeshii idinka in ku joogay iga nuuriyo oo waxa weeye iga hagaajiyo waxyaalaha yarka waxa weeye igu dhiirigeliyo in aan aniga laftigayga sheekooyin badan oo qisooyin iyo qiirooyin lehba aan idin soo gudbiyo insha Allah aad baan idin jeclaa asxaabay waxa weeye halkaan ka wada socon doonaa insha Allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh channelka ha ilaawan inaad subscribe try like haddii aad sheekada ka heshay iyo muuqaalka inaad ku dhufato commentiga haddii aad ma taqaan ii haysid wax fikir oo aan u baahanahay inaan channelkan ka bedelo ama ku soo kordhiyo waxa weeye aad baan u soo dhaweynayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh